hani inuu cabdisalaan uusan qabin hani iyo cabdisalaan inay isfurayn hani iyo cabdisalaan in ay caruurtaas oo mas'uuliyadda dhan uu ka xayuubiyey hani inuu cabdisalaan oo ka masiirsan yahay oo nolol u diidan yahay hani inuu maaragtay cabdisalaan oo u diidan yahay in ay nolosheeda farxad ay ku qaadato hani inuu cabdisalaan ka helo wado cidla oo aan maaragtay laga qaban karin hani waxyaabo fara badan ayaa maaragtay iskugu maaragtay abuurmay oo isugu yimid oo isugu koobmay haddaan yani dumar nahay iyo haddii aanu nahay ragbo maanta waxay taagan tahay hani in aan difaacno waa haweeney waa dumar waxa weeyaan maaragtay meelaha qaar inaad taabto oo aan ag maro oo aniga xogowaal u ahay oo aniga aan goobjoog u ahay oo aniga maaragtay nolosha noocaas aan dumar fara badan aan kula soo kulmo oo haysato hani abuse ayuu ku haysta ninkaas waa idin kala hadlay wuu abusay wuu furay nin furay ayaa sanka sas lagu duray oo lagu dhahay nikaaxa anigaa joogay meerka anigaa joogay aniga furiinka ma joogteen furiinkooda ma joogteen wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu shimbirteyda waxaa idin weydiiyey hani iyo cabdisalaan furiinkeeda ma joogteen nin inaar isqaba ayaa ku ogeydeen hani iyo cabdisalaan furiinkooda ma joogteen aniga marka ay idin kala hadlayaa hani mas'uuliyadda cabdisalaan wuu kala wareegay arin aan hubo oo xogaal u ahay oo aan ogahay ayaan idinla imid laakiin qof walbo waa ay diiday qof walbo waa ay deerisay qof walbo ninka dhibanaha ayaa la jirsatay hadda cabdisalaan maduu saxan yahay fiiri hadduu saxan yahay hal meel ayaa idinka tusinaya oo sax samaynayo cabdisalaan 4 bilood ayay kamaal uu qabay yani kamaalka sheeganaya inay hani xaadkiisa tahay 4 bilood ayuu qabay dhegeystayaa 4 bilood ayuu qabay afartaas bilood waraysiga soo dhageystay ee hani ee bixisay 4 bilood ayuu qabay maxaa cabdisalaan ku kalifay inuu hadda ka waramo oo hadda soo bandhigo inuu ceebeeyo oo fadeexeesto haddii cabdisalaan oo ilmahan oo naxayo mar hore uu ka nixi lahay haddayna waa idin taabtay ilmahaas ceebta uu imaanayso waxay noqonaysaa ceeb adduunyo oo weligood aan ka harin فرعود أكهرين نرشود هكهرين مستقبل كودا أكهرين دمات كنا قطع أيهود ونبعت كاي جبريس حتى يبري الجرسنا ما كل الجرسدو ليرد هو إذا لله يعني عبد السلام محاكو كليفي أسجن نتركيس إذا كسودية أفر بلاد كذب إن أميري هسية ورثي أفر بلاد أو كسوريت وحو يروان أوجا هذا الذي استأصل فيريا وحو يروان أوجا حلي جاس ما كنت يجدوا متى بحذا بان إيشكتي سم حق ما لهن دينا نقبل إنك كرادين عروسة يقول نكاح أصعد أودي أصعد شقق ملهي الديسات دانتي لسا عبد السلام حق ملهي واحد حق ولا دعم لهن ما أنت هني وحبها أنت جرستاي ما أنت وحبها أنت هني هي اللي وحبها أنت وهني وحكناش هالدمر بدل وحيكونوا لين يعني وحكناش هالدمر فرب بدل ما أنت وحيكونوا إن هني ودواتي سنتهاي وسلع سنتهاي ومارتي وحبها أنت جرجار يعني عالمية جرجار ولا نما يحبها أنت أركب حدي أنا أجرجاري مكاني هذا أوكي يسوي جاري وإيش يدون إن شاء الله بإذن الله أوكي مركز تقول كل هذا وسهل يصير في الشيء أنا جاي يدون إن شاء الله بإذن الله هني هدي أوني كان أقرب قومرك أو حاس كي سيتاي مكي عرفت دكتور صبتاي أيها لجرب إنه هالله هني أنا جا قبو حاس كي ويان واي أوني كان أنت واحد كتبي واي أوني كان أسود وياي ورأسك بكو بحين عينك وصل الله فيه وكره الله يا أخلينا هذه كلنا سواء ما ندارنا يمالن بنا نعورنا فين مال لغسيه أو مال بدنا نوضب ولا معهم وإنا فهمنا عقلنا يسرين كا يدد واوين أنا ماشي واحد جوجو ودد واوين عرور معه واحد قنول واحد هذا ودد واوين marka ninka hadii caruurtiisa uu naxayo oo mustaqbalkoodu naxayo markaas ayuu dhii lahay hani aniga qabo miisan hay waa idin weydiiyay dhamaantiin hani aniga ayaa qabo dhii lahay muuqaalka la sheer gareeyo ugu baahan tahay waayay ugu baahan tahay laakiin hani hal xabo hani waxa sheegtay sida ana idin sheegay in ay maxkamadda ku qalbixin ilmaha mas'uuliyadda laga wareejiyay waxa looga baahan yahay hani in ay la yimaado warqadihii cadeynayay maxkamadda ee kaga soo dhamaatay waayo warqadahan wuxuu yaalaa things written ayuu yaalaa tiri aniga Sweden waan ku noolahay warqada things written ee taala
marka warqada things written taalo waa inay soo cadeyso ee ku cadeysan ninkan inay kala tageen waliba ay ku cadeyso mas'uuliyadda ee tasheegtay oo aan hore idinku sheegay in uu kala wareegay fiiri mas'uuliyadda warqadaha things written nin walba oo things written soo maray ama maxkamad soo maray muhiim ah maxkamadda Sweden soo mar ama maxkamad Yurubtan kala soo mar ama Mareykanka soo mar nin walba oo maxkamad wadan sharci ka shaqeeya soo maray warqadihiisa iyo dokumentiyihiisa meel ku jiraan warqadaha iyo dokumentiyada meel ku jiraan hal telefoon ay wacda kugu filan waxay qaadanaysaa unifaar isku wareeg isku dardar in 1 week and week ay qaadanaysaa kaliya waa isku dardar waxa ku filan xataa fiiri gmail leedahay waa rajabsadaba waa sida sheegta okay waa ka gudnabo waxa ku faqir inay awkaateeda wacdo sababtoo ah things written markay tageysay oo warqadaha laga siciicay oo mas'uuliyadda laga wareegay oo ay ogolaanaysay oo lagu gumeysanayo oo dhibaato iyo waalidkeed wax qabo waayeen ya ee wax qabo waayeen waxaad ogaataa waalid waxba kuma qaro karo ma awoodi inuu waalid wax ku qabto markay imaado arinta things written markay imaado maxkamad markay imaado arinta maxkamadda wallahi wax ma qaban karo awoodiisa ma ahan ma gaarsiisan waalidka waalidka awoodiisa kaliya waxay gaarsiisan tahay in uu maartay wax xalxaliyo wax dhooro dadkii waayeelo iyo odayaal u diro dadkii maartay kala qabto oo awood u leeyahay laakiin maasha markay maxkamad imaado waxaad ogaatiin in ay waalidka wax ay shaqo ay ka qaban karaan aysan jirin maxkamadda ninkii soo mar uu yaqaan waalid waxba kama qaban karo arinta waxay u taalaa dawladda faraha la gasho dawlad markay faraha la gashanay laba dhinac u dhacaysa inay iyadu ku aflaxdo inay si ku aflaxdo sida sheegto waa karoona litri ilma intay gaalada qaadan lahayn waa saxiix oo daay way wixii dhibaato fara badan ku haystay hani kaliya ma ahan waayaalo hani kaliya ma ahan gabdho badan ayaan goobjoog u soo ahay oo goobjoog u soo ahayn oo adduunka caalamka adduunka oo dhan ku wada nool oo abuse ku nool oo la dilo oo xataa dilka kaliya ma ahan gacan ha ku arkin inay gacan tahay ku kaliifay asaga natarkiisa idinkiis weydiiyay 4 bilood kadib in uu meediyaha siiyo wareysi 4 bilood oo ka soo wareegtay wuxuu yiri waan ogaa hadaladiisa isdhaafso fiiriya wuxuu yiri waan ogaa xiligaas markii intay iga dhuumatay ee baxday baan ii sheegtay si xaq uma lahan deenaaga qabin inay ku dhaadin inay aroosay gunikaaxa u socda odayay u socda shaqo kuma lihideysay doonta yeelisa Cabdisalaam xaq uma lihid waxaad xaq u leedahay ma lahan maanta hani wuxuu baahan tahay garab istaag maanta wuxuu baahan tahay hani hiil u baahan hani waxay ku nooshahay dumar badan waxay ku nool yihiin hani waxay ku nooshahay dumar fara badan maanta waxay ku nool yihiin hani waa dhibaataysan tahay way silacsan tahay way maaragtay waxay u baahan tahay gargaar yani caalamiya gargaar walaalnimo ay u baahan tahay arka haddii anaga u gargaari markaani hadaa codkayga soo gaari waayo waa ii sheegi doonta insha Allah bidnillah codkayga markasta oo idinku yiraahdo waa soo heliysid isoo sheega aniga aydan yeelan doona insha Allah bidnillah hani haddii oo ninkan oo dhab u qabo marka oo xaaskiisa ay tahay markii ay arinta ay boogta cusub tahay ayaa laga rabay inuu hadlo oo dhaho hani aniga qabo xaaskayga weeyaan waayo oo nin kale inta ugu xadgudbay waayo oo nin kale u soo dhaweeyay waraysiga markuu bixinay ninka was la hadlaya fiiri waa kala hadlaya aqligiina ha idin kala reebno Soomaalidana maalin bila dhinac waradno filim maalba meel laga siiyo oo maalba dhinac noo daboolo ma ahan waa inaan fahamno aqligeena iyo saliimka iyo dad waaweynanaay meesha waxa joogo waa dad waaweyn caruur ma ah waxa ku nool waxa hadlaya waa dad waaweyn marka ninkan hadii caruurtiisa uu naxayo oo mustaqbalkooda naxayo markaas ayuu dhii lahay hani aniga qabo miisan ahayn waa idin weydiiyay dhamaantiin hani aniga ayaa qabo dhii lahay muuqaalka hal sheer gareeyo ugu baahan tahay waayay ugu baahan tahay laakiin hani hal xabo hani waxay sheegtay sida ana idin sheegay in ay maxkamadda ku qalbixeen ilmahan mas'uuliyadda laga wareejiyay waxa looga baahan yahay hani in ay la yimaado warqadihii cadeynayay maxkamadda ee kaga soo dhamaatay waayo warqadahan wuxuu yaalaa things written ayuu yaalaa fiiri aniga Sweden waan ku noolahay warqada things written ee taala marka warqada things written taala waa inay soo cadeyso ee ku cadeysan ninkan inay kala tageen waliba ay ku cadeyso mas'uuliyadda ee tasheegtay oo aan hore idinku sheegay in uu kala wareegay fiiri mas'uuliyadda warqadaha things written nin walba oo things written soo maray ama maxkamad soo maray muhiim ah maxkamadda Sweden soo mar ama maxkamad Yurubtan kala soo mar ama Mareykanka soo mar nin walba oo maxkamad wadan sharci ka shaqeeya soo maray warqadihiisa iyo dokumentiyihiisa meel ku jiraan warqadaha iyo dokumentiyada meel ku jiraan hal telefoon ay wacda kugu filan
waxay qaadanaysaa unifaar wareeg isku dardar and 1 week and back ay qaadanaysaa kaliya waa isku dardar waxa ku filan xataa fiiri gmail leedahay waana jabsadaba waa sida sheegta okay waa ka gudnabo waxa ku faqir inay awkaateeda wacdo sababtoo ah things rata markay tagaysay oo warqadaha laga siciicay oo mas'uuliyadda laga wareegay oo ay ogolaanaysay oo lagu gumeysanaay oo dhibaato ee waalidkeeda wax qabo waayeen ya ee wax qabo waayeen waxaad ogaataa waalid waxba kuma qaro karo ma awoodi inuu waalid wax ku qabto markay imaado arinta things ratan markay imaado maxkamad markay imaado arinta maxkamadda wallahi wax ma qaban karo awoodiisa ma ahan ma gaarsiisan waalidka waalidka awoodiisa kaliya waxay gaarsiisan tahay in uu maaragtay wax xalxaliyo wax dhooro dadkii waayeelo iyo odayaal u diro dadkii maaragtay kala qabto ayuu awood u leeyahay laakiin maasha markay maxkamad imaado waxaad ogaatiin in ay waalidka wax ay shaqo ay ka qaban karaan aysan jirin maxkamadda ninkiisa mar uu yaqaana waalid waxba kama qaban karo arinta waxay u taalaa dawladda faraha la gasho dawlad markay faraha la gashanay laba dhinac u dhacaysa ima inay iyadu ku aflaxdo ima inay si ku aflaxdo sida sheegto waa karoon aan tiri ilmaha intay gaalada qaadan lahayn waa u saxiixay u daay waayo wixii dhibaato fara badan ku haystay hani kaliya ma ahan walaalo hani kaliya ma ahan gabdho badan ayaan goobjoog u soo ahay oo goobjoog u soo ahayn oo adduunka caalamka adduunka oo dhan ku wada nool oo abuse ku nool oo la dilo oo xataa dilka kaliya ma ahan gacan ha u ku arkin inay gacan tahay